oraha waxaa jirta oranaysa martida iyo kalluunka ama malaygaba maalmo kadib way soo uraan tamcineedu waxa ay tahay kalluunka badda hadii laga soo saaro maalmo uu yaalo banaanka ur kale ayuu yeelanayaa martiduna 3 maalin ka badan hadii ay guri joogto dabeecadii lagu dhaqmi jiray dabeecad ka duwan baa lagu dhaqmayaa Soomaaliduna waxay tiraahdaa martidu 3 maalin kama badato hadaba videogan waxa uu hadli doonaa hadii aad marti noqotid iyo qaybaha martida loo qaybiyo iyo sida aad ugu feejignaa doontid hadii laga yaabo maalmaha kamid ah inaad marti meel ku noqotid soo wasxabka shaad bisani mudu weyn kala maqnaan videogan waxaan rabaa inaan uga hadlo martida horta martida waxa loo qaybiyaa labo marti asxaab aad ku tahay iyo marti aad ehel ku tahay martida aad asxaabta ku tahay ku dheeraan mayo kaliya wuxuu u baahan tahay sida aad aqligaaga u kaashatid iyo sida aad u indhiideysid xaaladda markaas lagu jiro laakiin waxaan ku dheeraan doonaa haddii aan la idmo martida ehelka badanaa markaad waalidka ka soo tagtid hooyay aabe aad ku soo degtid reero kale oo markaas ehel ah ehelku badanaa waa walaalaha adeerada eedooyinka habeerada dhammaan dadka adiga kugu dhow oo hadii aad dhanka hooyo iyo dhanka aababa dhowr magac aad sheegtid ba aad iskugu iimaanaysaa meel dhow kaas ayaa la yiraahdaa ehelka hadaba sidaan ognahay waxa jira dhalinyaro aad u tiro badan oo markaas madaxa soo qaadaya kadibna jeclaysanaya meesha ay joogaan inay inta ka tagaan meel kala tagaan si noloshooda u horumariyaan dadkaas u tagayaan waxa laga yaabaa inay walaal yihiin eedo habeer qof markaasi ah qofkan markuu soo kacayo dhalinyarada uu yahay ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaato waxaan laga yaabaa fikir kale inuu qabo si noloshiisa u horumariyo laakiin fikirku uu qabay fikir ka duwan ayaa uu la kulmayaa cadaadis tiro badan ciil tiro badan iyo waliba inuu dareemo gumaysi halkii wax ka qaldan yihiin meeshii wax ka qaldan yihiin meel dhow baa ka tusinaya insha Allah waana jeclaa doonaa inaad adigu ku dadaashid sida aad xalka u heli lahayd horta marka guriga hooyada ka soo tagaysid qaabka uga soo tagaysid qaabkaasi ayaa ah marka koowaad qaab qaldan sidee ku noqonaysaa tusaale ahaan markii aad maanta eedada lagu dirayo hadad wiil tahay ama habeerta lagu dirayo wiilaho ama gabar aho horta waalidka hooyo aaba waxay jecel yihiin inaad nolosha horumar ka gaartid marka koowaad ay rabaan inay reer ku diraan ama aad ehel la noolaanis qofka doon ha noqoto waxa ay ka baqayaan marka horeba inay diidmo la kulmaan saasoo ay tahay hadalka waxa ay ka bilaabayaan hebel ama heblaayo ayaan ku soo dirayaa si ay kugu shaqayso waana jeclaalaha inay ku caawiso isla markii qofka lagu dirayo maskaxdiisa waxa ku programayso in adiga aan noqonaysa caawiye meeshii ehelka way ka baxaysaa saddexda maalin ugu horeyso waxa lagu soo dhaweynayaa wanaag sidii martida lagu yaqaanay wixii inta ka dambeeyana waxa bilaabanayso programkii ku programsanaa qofkaanay ahaa inaad caawisid maanta dhan guriga hadaa wax ka qabatid maanta dhan hadaa wax wanaajisid si walbaba aad wax u wanaajisid ama si wax u qabatid qofku saamarku ku arko maskaxdiisa waxa ku safgaraysan wax la yiraahdo caawin waana tan badana keentay inaad isfaham weydaan ama mararka qaar aad dareentid in adiga lagu isticmaalayo haddii aad maanta ka mid tahay dadka ehelkooda la nool aan weli la nooleen waalidkood hooye aabe ee la nool walaal ama habarir ama eedo wixii hore u soo dhaca way u soo dhaceen wixii maanta ka dambeeya waxa aad ku dadaashaa in fikirka ay qabaan aad bedeli kartid waxaana ku bedeli kartaa inaad hadli kartid qofku inta badan uu hadlo ama uu waxyaabihiisa uu tabanayo ka hadlo oo inta badan ay xalal imaanayso haddaba yaa la hadlaya waxaad la hadli kartaa waalidka baa la hadli kartaa waxa la hadli kartaa qof ka mid ah walaalaha qof ka weyn ama qof ka yar haddii aad maanta wiil weyn tahay ama gabar weyn tahay ay jirto qof ka yar oo markaas ehel la nool markaas waxaad ku dadaashaa inaad wici kartid oo xaaladiisa caafimaad iyo xaaladeeda caafimaad ba aad wareysan kartid iyo sida qofkaasi uu nool yahay inta badan qofkaasi walaaltinimada u xiriirinaysid oo xaaladiisa qaaska aad ka wareysanaysid oo inta badan marka dambe ku kalsoonaanayo inuu wax kuu sheegto halkaasina xal ay ka imaanayso laakiin qofkan hadduu la aamusnaado uu boqo waxaana laga yaabaa haddii waalidka la soo hadlo uu ku yiraahdo dhibaataan dareemaya waalidku badanaa caruurta ay dhaleen iyo eeguba isku fikir ma aha badanaa si kala gooniya bay u fikirayaan waalidku waxay jecel yihiin inaad meel ka muuqatid wax qabsatid meesha aad joogtid ciil walba aad ku dareemaysid uma muuqanayso ee kaliya waxa u muuqanayso in meeshaasi aad wanaag kala kulmaysid laakiin haddii aad wax u sharaxdid oo wax dareensiisid laga yaabee inay isbedelaan laga yaabee in macnaha de ay wax uun bedelaan laakiin hadaa aamusnaatid oo hadalka soo koobtid xanaaq ah ku soo koobtid waxa laga yaabaa inay u arkaan inay waxba ka soo qaadin ee isdhahaan waa wiilkaaga oo xanaaqsan ama gabadhaadii oo xanaaqsan ee wax yiriis ay ka soo qaadaan mar walba aad culeys gudaha dareemaysid waa inaad waqti isa siisaa kadibna aad qofka markaas isdhihi kartaa hadalkaaga wax buu ka soo qaadayaa sida waadaxa aad ula hadli kartid kadibna u sheegi kartid dhibaatadaada haddii aad u soo laabto martida asxaabta badana waxaad ku dadaashaa 3 maalin waxa aad ku ogaataa dadka aad ku soo degtay dhaqankoodii dabeecadoodii fikirkoodii inaad fahantid 3 maalin marka aad fahantid kadibna waxa aad ku dadaashaa
inaad bixi kartid dhaqaalahaasi oo kaa saacidaya inay daboolaan baahiyaha soo bixi kara reerkaan kusoo degtay in bay isticmaali jireen wax ku filan bay isticmaali jireen laakiin maalinta aad soo fuushid waxyaabo tiro badan baa soo baxaya awal aanan muuqan jirin waxyaabo indirect aha waa wixii u soo baxayaan si direct ah culeys badan baa soo fuulaya kadibna culeyskaasi markuu soo fuulo waxa laga yaabaa culeyskaasi awal inuu jiro oo indirect aha laakiin marka culeyskaasi uu soo baxo qofka muuqanaya ee reerku kusoo biiro waa adiga si culeyskaasi adiga aan lagula soo aadin mar walba waxa ku dadaashaa inaad dhaqaale bixi kartid oo aad dhihi kartid dhaqaalahan uma bixinayo in macnaha hadii idinka ay dhahay waxba u baahan tihiin waxaan u bixinayaa faa'iido ani ugu jirto ah hadii aan maanta magaalo kale oo aan cidna ka aqaanin ku degi lahaa hotel baa laga qaadi lahaa qarsh cunaa laga qaadi lahaa qarshaad kalena waa u baahan lahaa intaan hadda igu bixisay in ka badan baa igu bixi lahayd si aan dad isku xiran u noqono kun ku dar baa wax saa'iidiso marka sidaas ayaan dhaqaalahan wax ugu dirayaa marka aad tiraadid waxa imaanayso markaasi issue ku arki lahayd inay ka sii jeedato halkaasina aad ku noolaatid si nabad ah oo degan inta danahaaga qaaska ah aad meesha u tagtay aad ka fushanaysid haddii aad soo laabto martida ehelka waxa u sawiran adiga ayaa bedeli kara waxaadna ku bedeli kartaa in markaasi aad ka hadli kartid waxa aad dareemaysid ayagu yeesu kula dhaqmin inaad adigu meesha u tahay inaad shaqaale ka tahay ee ha kula dhaqmaan inaad ehel tahay ehelkuna waxa mideynaya wuxuu yahay dhiiga Soomaalidu waxay tiraahdaa laba qof walba oo isdagaasha heshiiskooda hore baa xumaa taa micnaheedu waxay tahay markii ugu horeysay ee aad reerkan ku soo biireysay reerkan awal waa ka mid ahayd familkaagay ahaayeen laakiin qaabka ugu soo biirtaa laga yaabaa inuu ahaa qaab markaasi ah inaad adigu gurigaasi wax ka qabatid guriga wax ka qabo ma xumo laakiin waxa xun in guriga aad wax ka qabanaysid isla markaa aad cadaadis ka dareentid isla guriga aad isdhehaysay ehelkaaga baa ku nool midna ha ilaawin haddaad ehel la nooshahay hadalka lagu dhahayo iyo dadka kale ee gurigaasi ku noolaa ama ku dhashay hadalka la dhahayo isla hal hadal hadduu yahay isku si ugama falcelinaysaan hadalkaasi haddii lagu yiraahdo waxa laga yaabaa inaysan waxba ka soo qaadin laakiin adii markii lagu yiraahdo waxa laga yaabaa inaad ka gubato waayo waa cusub tahay dadkani hadalkani way la soo qabsadeen way ku soo koreen waxayna u arkayaan in waxba aysan ahayn hadalkani mar walba hadal lagu yiraahdana ha u qaadanin ama ha u fasirinin adi shakhsiyan in lagu isticmaalay ama adiga lagu wado mararka qaar wax xeeri oo waxyaabaha waxa ka soo qaadaa in laga gudbi karo inta dadaali kartid wax qabo wax caawi wixii inta ka badan waxa aad ku dadaashaa inaad horta marka hore naftaada u sheegtid waxa aad qaban kartid inaad qabatay inaad nasasho u baahan tahay haddii hadal la xunxun iyo waxaad dareentine waxaad raadisaa qof aad markaasi kala hadli kartid walaalka ka yar walaalka ka weyn ama waalidka ama qofka aan markaas la nooshahay inaad si toos ah u abaari kartid oo aad kala hadli kartid waxa aad dareemaysid waxaan u maleynayaa videogan inuu ka caawi doono meel walba dunida ka joogtaan waa saaxiibka Shahid Bisan oo idin dhaxaya assalaamu calaykum